aan soonka ku dadaalno inta la xoreeyana Allah nagu daro maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam jibriil ayaa wuxuu yiri saddex qof ayaan habaaraya aamin iideh nabigu wuxuu yiri waa haddaan u arko dadkaas inay habaar mudan yihiin qofkii labadiisa waalidoo gabow ah inta soo gaara aan baari u noqon oo jannadii waaye naaro gale Allah ku fogeeyo aamin yiri nabigu caasima jacala qofkii kugu sal magacaaga lagu sheego meel lagaaga sheekeynayo kugu salinayna marta la ku fogeeyo aamin ayuu bisha ramadaan qofkii soo gaara ee aan dambi dhaaf la siinin ee bishu markay dhamaato inta naarta laga xoreeyo aan ku jirina oo ilaahay u caroodina naarta la ku fogeeyo aamin yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam walwalkaas waa inuu nahaayo ilaahay inta la xoreeyo nagu darayo ilaahayna ha waafajiyo laylatul qadriga iyo soomka Allah na waafajiyo cilmigana Allah na waafajiyo abaaraha iyo calaadahan Allah naga qaado waxa la wixii maarata dhibaato dalkeena iyo dadkeena ku ah Allah ka qaado muslimiintana dhibka Allah ka qaado yani dawlad iyo amni istiqraar Allah na siiyo masjidka inta soo xaadirta iyo suuqa Allah noo barakeeyo koonbadeena iyo madaalkeena iyo alaabteena waxana dhan Allah noo barakeeyo saan ugu kulannay masjidkan jannada Allah